intaan raadinaya horta 4 qof waaye 3 ilmaan u haya 2 wiil iyo 1 gabar kan ugu horeeya Cabdullaahi Maxamuud Rooble Candhu Firaal dhaha waa nin abgaal oo waceyslo oo macallin iblaawe jooga Mareykanka waxaan u hayaa cunug 18 jir ah tan labaad waa cunug hadii ag joogo Abu Bakar al dhaha Aabis Axmed Cabdullaahi Axmed aan raadinaya waa nin habar gidir ah oo sacad oo reehilowle ah Mareykan jooga asagana wiil 16 sano jiraan u hayaa ab maxaa leeyahay wiilkaada aan yahay waqti aan ku baahnaa la joogo waqti maanta in adu waa i baahan maantana baay aab ku qaba ee aab soo raaday ana ku baahane kan kale oo saddexaad Najiib Ibrahim Abshir waa nin maraxaan ah oo reediina ah Zambia jooga asagana waxaan leeyahay eelkiisii qaraabadiisii inay soo raadiyaan gabaraan u hayaa 7 sano jirta qofkan afraad ee asna waa raadina dhaysan uu ahaa asagana qisidiisa iyo ninka afraad oo raadinaya waa nin majarteen ah majarteen waa Umar Maxamuud Raama haduu ka yahay Cabdirashiid Maxamuud Xuseen aldaa masuungu ku magac dheeri marka asaga ninka abgaalka markaan kala tagnaa isguursanay adaa muddo 1 sano is qabnay wiilkan aabis ka hor waa ka hor kan wiilkan aabis ka hor okay marka asaga naagtiisa dibida jirtay oo dibida ku maqneed intee naagtiisa markii dibida ku maqneed okay oo fiisi wax soo xareysay bas marka flight loo soo dhijiyay marka flight loo soo dhijiyay oo dhashan corona doon dhoofaya kulay daan dhoofanaadun ban ku dhoofi cadeeleysaa aad shaqaystay balcaan shopping aan ku samaystay iraada oo xagga marka la tago dhar inta laga qaado xagga loogu baahan yahay jirto xagga lagu gadgaday bal adigina saa wax ugu heshid ana dollar day tahay ma aqaanay lacag Kenya naqaanay lacag 2 milyan ah wiiga qaaday ninki maalintu dhoofe ay ugu dambeysay warkiisa ma ahe warkiisa dhammaantii ay ugu dambeysay waan Ridwaan ahaa Ridwaan Isaaq podcast fadhiya maanta mar kale waxa ila joogta hooyo Soomaaliyeed iyo wiilkeeda ila joogan maamada ay hor fadhido ayada iga codsatay podcastigan waxay ugu tiri inay caawisaa rabaa waxaan iga caawinaysay tiri 3 wiil aan haystay tiri 3daas wiil 3dii aabba dhalay ayaan u raadinayaa waa kala qof wiil kasta aabbu leeyahay ay raadinaysaa waa nooga dhici doontaa sheekadaas iyo qisadaas iyo siday wax u rabto intaan bilaaban ka hor haddii weli channel subscribe ku ahayn waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe ii saartid aad u mahadsan tahay maamo assalaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhawow waa dhawahay soo dhawow adigana waa dhawahay adan kuu hormaraya maamo wiilkan wuxuu codsaday maadaama barnaamijka asagana qayb ka yahay in wejigiisa yar qarino marka dadka waxaan ka raali gelin doonaa ama waxaa rabaa inaan sii ogeysiiyo in wiilkan wejigiisa si clear u arki doonin oo wax oo si asaga ka yimid waa inkastoo adiga rabtayba in la arko asaga waa rabay inuu dadkooda inay arkaan u baahnaa okay maamo sida wax u rabtay horta noo sheeg bal noo bilow soo dhawow magacaaga ka bilow iyo maanta yani ujeedada ugu weyn ama muhiimadda ugu weyn ee maanta adi podcastigan aa u codsatay aniga ila soo xiriirtay ee maantana halkan u joogtay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu horta magacayga waa Shankaroon Shariif Maxamed marka niman aan ilmo u dhalay Mareykanka ku maqan nimankii ilmihii lama soo hadlaan ilmihiin way weynaadeen maadaama aabiyaalkoodii ehelkooda ay u baahan yihiin darteed ayaa maanta Ridwaan ugu imaaday okay so waxaad tiri niman aan ilmo u dhala raadinaya meeqaan inaa raadinaysaa 3 nin iyo 1 nin oo ilmo u dhalna ku 4 ah 4 qof raadinaysaa 3 nin ilmaha u dhashay meeqa ilmaha u dhashay waxaan u dhalay 2 wiil iyo gabar okay so nin kastaba hal cunuga u haysaa ilmaha aabahooda weligood ma la kulmeen maya ma yaqaanaan okay wiilku ugu weyn meequu jiraa wiilku ugu weyn 18 sano jiraa wiilka 18 sano jiraa aabis weligiisa intay isla fadhiisteen ma sheekaysan maya wiilka labaad meequu jiraa ama gabaraa ku xigta wiilaa ku xiga kan ku xigan 16 sano jiraa markan 16 sano jira soo uur la isku kayn dabaysa wiilka 16 sano waa wiilka isla socotiinay kana la socona Bakar asagana
aabihiis intay fadhiiseen ma sheekaysan maya qofka saddexaad mee ku jiraa gabadha yaroo saddexaad waxaa jirta 7 sano aha iyadana aabeed ma arkin weli okay maraykanay joogaana tiri ma ayaga dhana maraykan joogaan ama se waxay yihiin laba maraykan ay joogtaa oo labada wiil aabood gabadha aabeed Zambia joogaa saddexdoodaba adiga soo korsatayba anaa korsadaa ilmaha dhan maanta maxaa intaasna u raadin weyso dadkaas yani maanta maxaa sababay inaa in soo fadhiistid oo ilmahaas aabood u raadisay Nairobi maanan joogin ani meel wajeer dhan ku noolahay marka meesha ilmaha ku korsadaa marka maadaama on dad dan aan u imaaday Nairobi oo hooyadii xanuunsan aan Nairobi aan keenay marka waxaan isdhahay bal dadka Nairobi ay ku badan yihiin nimankan bastoor Nairobi aan ka guursaday bal waxaan isdhahay kaal ehelkooda raadi ehelkii markaan u tagayna waxay dhaheen annaga ma raadin karnay waxaad yeelaysaa sifo nimanka lagugu soo raadiyo qof caan u tag marka ha ku soo duubo saasaa lagugu raadiyo saddexda nin afarna raadinaysaa tiri midka ugu dambeeya waa u tegi doona ilma umahaysid kaas laakiin waxaan rabnaa inaan fahanno horta qofka ugu horeeya iyo wiilka ugu horeeya u haysid iyo saa isku guursateen iyo saa isku weyseen iyo noo bilaabo kan horta u horeeyan wiilku u dhalay anoo 2 cunug haystaan isguursanay midka abgaalka ah isaga abgaal waaye oo ceesla macalin dhibla uu ka yahay marka 204 Nairobi imaaday 204 aan isbarana aniga marka hooyadiis iyo 4 sagal dhalata Maraykan ku maqneed oo soo biilayeen asaga markaan isguursanay waxay dhaheen naaka weynaad guursatay dheen biilka ka goosteen anina waan iska shaqaysanay marka waxaan dhahay maadaama ay biilka ka goosteen waxa u bixin anaa masruufay anaa biilay bas ka kuma u dira waxaan dhahay ka boos soo raadso hooyaday walaalaha maadaama ay ku ciileen anaa ciil ka bixin oo boos ku gadaaya boos maxaa laga wadaa macnaha fiiso leen uu ku baxa soo raadso adaa leh anaa ku dhahay aan markaas waa iska shaqaysanay marka bas ka kuma aaday oo ila soo hadlay wuxuu dheelayna helay oo wiilal oo reer Baraaba ah marka $500 loo baahan yahay dollarka markaas waxa lagu sarrifay 7500 marka aad lacag 40,000 aan u diray waa 2000 iyo 40,000 oo Kenya ma waxaan ka wadaa sanadka 2004 ala marwaya 2004 waqtigaas bas ka kuma aaday uu kula soo hadlay wuxuu ku yiri leena helay $500 waa isugu dhahay marka 40,000 aan u diray oo Kenya manay 40,000 marka adi leenku ku gatay leenka markuu ku gatay waxuu la marmaray wiilashii uu soo laabtay Nairobi imaaday marka la soo dhijiyo tigida aan gooyna intaan ka diray yani kaaku markuu aaday marka leenks u gadanay dad already qaxooti oo leen ku jiro leen ku jiraan uu ka gataa oo 500 kaga gatay yani ilaan leen caadi saas intaas lama gaday oo dad qaxooti oo kaar lahaa uu ka gatay 500 ka shubtay 500 aan ka shubay waa ku soo laabtay markuu ii soo laabtay wiilka uurkiisaan qaaday marka aniga marka wiilkaan dhalay wiilka oo 8 bilood jiraan kala tagnay markaan asaga markaan kala tagnay ma u qaabanin leenka markuu baxayo uu imaadaba lacag waan iska siinay uu baxayo ka kuma aadaay wuxuu soo maray marka dambe waa la soo dhiji idinku isfurteen wali yani wixii qarash ku baxaysiinaysa aan siinaya okay 207 gal soo dhiji marka 207 marka la soo dhijiyay walaalahay wuxuu leeyahay Maraykan ay qaadatay wax walba maray faraayada li soo dhijiyay ogaantay lahaw dibka rafaadkaad igu soo martay markaan baxwaan ka bixin uu igu dhahay shopping ii hagaaji asaa dhaha bas shopping aan hagaaji lacag $800 aan siiyadana shopping aan hagaaji uu baxay oo safarkiisa bas uu baxay Maraykan u tagay marka Maraykan markuu tagay inta hore qof bilaadan been lagama sheegay inta hore wuxuu ii soo dirdiray maalin fasta u baxay wax buu ii soo diray meeqa bilood camal 207 ku baxay ilaa 210 wax buu ii soo diray 3 sano camal waa 3 sano camal uu kaaga warqab yani wuuna ogaa ina wiilkii maxaa ku dhahay markuu uraa leeyahay tiri markaa kala tagay maya markaan kala tagay cunug waan 8 bilood jiro cunug waaba dhashayba waa dhalay 8 bilood marka isfuriiseen cunuga waa haysatay waa haystay 8 bilood u jire bas tu otaanki marka uu soo wacay wuxuu dhahay gabar walaashay ka kuma imaade
waxaan rabaa cunug inaa u geysid 2010 haa waa ilaa waqtigii wax kuu soo diray ay sheegaysa waa haa okay marka waxaan dhahay cunuga ma geyn kariye qofaan garanayno ma geyn kariye walaalo cunuga iska dhaaf baan dhaana haysaniya markaasuu bilaabay marka horta inuu wax iga goosto okay markaasuu wax iga goostay suu iskaga maqnaa 2015 marka haddana ila soo hadlay 5 sano kadib 5 sano kadib marka wuxuu igu dhahay yar walaasheen viisa usoo dirnay oo Bombaaso imaade yartaasaan rabaa cunug inaa u geysid walaalo waxaa samay jirnaan ku dhahay may waa jiraan wuxuu dhahay cunuga gey cunugaa kuu baxa cunug hadduu baxdo wax kuu baranaa wax kuu qabanaa cunug waan waday walaashiisaan u geey marka anaa waday gacanteydaan ku waday walaashiisaan u geey cunug walaashiis markaan u geeyey cunug walaashiis iskuulna way ka bixisay dugsigana way ka bixisay xaafadda iska fariisiisay marka 3 sano iyadoo laga soo wareegto yar walaalkay uu dhalay ayuu jaamacad meeshuu aaday Mombaaso yarkee marka dhabal cunuga soo fiiri sax yarkii cunugii hadduu u tago wuxuu arkay cunugii oon iskoolna dhiganaynin dugsinan aan dhiganayno xaafadda iska joogo okay oo la joogo markaa eedihiisuu la joogaa marka yarkuu isoo wacay wuxuu dhihi cunugii iskuul kuma jiro dugsina kuma jiro xaafaddu iska joogaa eedadii aan soo wacay waxay tiri wax lagu sheego waa been markaas iyada marka tiishon ay u qabato cunugii tiishon guriga wax lagu baraa iskuulna ma aada dugsina ma aada yarkii walaalkii u dhalaan ku dhahay marka u tag wiilka ila soo hadashii wiilku ila soo hadlay wuxuu dhahay ana waxaan bartay laakiin tiishona guriga liigu dhigaa iskuulna ma aada dugsina ma aada okay bas yarka walaalkii dhalantii uu diray waxaan dhahay cunuga iisoo wad iisoo saar gaari yarka cunug gaari iisoo saaray Nairobidaana la keenay gabar walaasheen u dhiibay gabadh walaasheen marka iskool aan meesha aan ka geeyey marka aabii markaan waco marmaruu telefoonka iga qabana markuu iga qabto wuxuu leeyahay adasoo cunug iyadoo lagu haayo lagu bixin rabo cunug sooma wadin war cunug anaa haddaan wadan dantiisaan wadan cunug hadda waa nin akhrisanaayo oo hadda form 3 ah sanadkan hadda form 3 hadda form 2 ahay form 3 hadda aadaa okay marka haddaan wadano cunug akhris la-aan aan u wada xumaato uma wadin waatan eedihiisa oo ay baxaad dhaadan Soomaali ay ku laabatay eedidii asaga lala wadi rabay lala wada rabay baas joogtay ma wadin Soomaali ku laabatay marka wiil ka soo wada kadib waa marka aan wiil ka soo wada ka dambo okay ay Soomaali ku laabatay marka waxaan dhahay cunug hadda kale fiis u baahan yahay walaalo fiiska ka soo bix wuxuu dhahay cunug anaa wada rabaa xumaysay waxaan fiis aan ka bixinaa ma laha okay marka waxaan rabay ehelkiisa iyo qaraabadiisa kale dad uu ka dhashay hooyadiis iyo walaalihiis iskuul meeshay joogaan hooyadiis Faadumo la dhahaa walaashiis Naciimo walaashiis Sahro Guuleed Raaga kullu Mareykan ay la joogaan ninka oo cunuga u dhashay waa cunuga u dhalaa okay yani walaalihiis waa taqaanaadi haa okay marka walaalihiis qaar Soomaaliya joogaan Caasho Sahro hadda marka ninkaas maxaa leedahay marka waxa u raadinayso maxaa waa ninkan waxaan u raadinay waxaan rabaa horta ilmahan reer ay ka dhasheen oo dad ay ka dhasheen marka waa u tagi doona wiilkii labaad iyo aabihii dhalay iyo okay kan kan kuwada ka waxaan rabay dhamaanay reerkiisa inay la soo xiriiraan cunugooda oo cunugooda ay ka barhaayaan maadaama aniga hadda sida hore aan ahayn oo gacantayda hoos ay u dhacday oo maamo hooyadii xanuunsan oo keliyaha laga dhaqaan ku rafaad iyadoo darteeda Nairobi u imaada hadda okay oo Nairobi aan ku hayaa haddana inaan laabtaan rabaa haddii iskuulka la furo ilmahan ay baahan inaan wajaar u laabtaan rabaa marka waxaan rabaa cunugan reerkooda inay ila soo taakuleeyaan oo ka warhaayaan u baahanahay okay so waxaa rabaa in ninka aad raadinaysid ee wiilka koowaad aa u dhashay magaciisa sheegtidaa rabaa oo saddexan magaciisa waxaa la iyo dhahaa meeshuu joogo iyo dadka la dhashay iyo wuxuu yahay si dadku u fahmaan sina kula soo xiriiraan horta asaga wuxuu u dhashay Abgaal waaye Abgaal wuxuu ka yahay Wacaysla wuxuu ka yahay macallin Bilaaba magaciisa waxaa la dhahaa Cabdulaahi Maxamuud Rooble Candhuufyare reer Rooble ay ku magac dheeriyiin marka waxay joogaan reer Mareykan uu joogaa asaga hooyadiis Mareykan ay joogtaa Faadumo la dhahaa hooyadiis Saruur waaye waxaa ku xigta Caasho Maxamuud Rooble waxay joogtaa Mareykanka Naciimo Maxamuud Rooble waxay joogtaa Mareykanka Guuleed Maxamuud Rooble wuxuu joogaa Mareykanka Raaga Maxamuud Rooble wuxuu joogaa Mareykanka waxaasna asay la dhasheen asay la dhasheen wiilkaaga adeer u noqonaya marka wiilkay adeer u noqonayna okay Soomaaliya joogaatay Soomaali waxaa jooga Maxamed iyo Saadiyo iyo Caasho iyo Warsamo Abgaal waaye Wacaysla macallin Bilaaba okay maxaa ka codsanaysaa marka maxaa leedahay hadda aabahaas wiilka dhalay
waxaan ka codsanayaa inay wiilkooda soo xiriiriyaan oo ay la soo hadlaan wiilka hadda wuu akhrisanayaa maadaama ayaga marka hore akhriska ay ugu ciyaareen akhriska jundi badan aan ku bixi xataa qarash badan aan ku bixisa akhriskiis aan dib ugu soo celiyo okay markaa soo waday marka waxbarashaagiis waxbarashaankii haa waxbarashaankeeda qarash badan aan ku bixiyey kalaas 8 Nairobi aan ka dhameeyey Nairobi markaan ka dhameeyay reer wajaar aan ahay marka waxaan dhahay qarashka Nairobi secondary oo wajaar Nairobi maaye wajaar hal igu keeno gabadh walaasheen ka waday okay bas hadda wajaar oo ka akhrisanaya sanadkan form 3 aada okay wali wuxuu baranayaa haa okay maxaa leedahay marka aabahaas adoo magaciisa sheegaysid fiisa laga rabaa cunuga waxaa la Maxamuud Cabdullaahi Maxamuud Rooble Candhu Fire aabis waxaa la dhahaa Cabdullaahi maxaa leedahay marka la hado Cabdullaahi waxaan ku leeyahay kulley wiilkaada curudka waay kadibna waxaa maqlay inuu naa guursaday hal cunug ay u dhashay Mareykanka hal gabar ay u dhashay marka waxaan leeyahay cunugaada inaad ka soo waraysid kulley asaga oo dad qof xun u noqdayna wixii la dhashay kulley way joogaan marka hadduu asaga xumaado wixii la dhashay waxaan rabaa ehelkiisa inay soo raadeen wiilkan ay soo xiriiriyaan okay adiga hadda muhiimadda ugu weyn waxaa waaye in wiilkaaga familkiisa bartaa oo lasoo xiriiriyo okay oo school feeska la soo taakulay waxaa yeelay cunug akhris waa feature u baahan yahay marka in la soo taakulay cunuga waxbarashiis lagu kaalmeeyo u baahanahay okay familkaas intee kala soo xiriirayaan si ay wiilka telefoon ay u maqlaan telefoon lambar aan leeyahay sheeg numberka lambarkaygu waa 07 20 47 40 43 magacaaga waxa waaye magacay Shankaroon Sharif Maxamed wiilkaaga aabihiis waxa la Cabdullaahi Maxamuud Rooble Candhu Fire oo jooga Mareykanka I hope inuu kula soo xiriiro okay kaas waa wiilkaaga koowaad oo aabihiis u raadinaysa sidoo kale waxa u raadinaysa wiilkaaga labaad aabihiis raadinaysa wiilkaaga labaad waa wiilkan asagana aabihiis waa kala dhunteen aabihiis waa kala dhunteen soo uur la isugu kay dambeysay okay asna sidii hadda nooga sheekay bal asna meesha ka soo bilaabay isku barateen iyo ninka raadinaysa magaciisa ka bilaaway ninka raadinaya magaciisa waxa la dhahaa Axmed Cabdullaahi Axmed waa habar gidir Sacad Reehilowle okay waxa isku barateen tiri ka kuma isku barana markaan isbarano waa isguursanay cunuga uurkiisa yeeshay ana cunuga uurkiisa la aan isgafnay waa kala tagnay markaan kala tagnaan waxaan iska soo aaday Nairobi markaan iska soo aaday cunuga aan dhalay waan iska baxay wajaar aan iska aaday okay ana reer wajaar aan ahay wajaartu waxaan joogay ada 2012 mar soo noqday aan ka kuma aaday ka kuma markaan aadan lambarkiisa aan helay marka wiilka inta dhashay in kala ma ka warqabaa waa ka warqabaa oo ina uur leedo waa ogaa okay hatta markaan dhalay muu dhoofin uu joogo u maqlay okay wajeera aaday wiilkaaga dhashay wiilkan dhalaha noloshaas ka wad nolosheedan iska watay waqti dheer ka soo wareey adi waqti markii oo 2012 cunugii adi 2 sano bar jira aan aaday ka kuma cunugan waxaan dhalay 2010 kan dhalay cunugan okay 2010 bisha labaad aan dhalay marka 2012 kan aaday ka kuma lambarkiisan soo helay asaga dartiisa u tagtay meesha in raadis okay lambarkiisan soo helay waan wacay telefoon waa iga qaban waaye adaan u duubaa telefoon igama qabanayo marka raadinaysa waxa rabtay in la socodsiiso cunugiisa inuu la soo xiriiro marka faraha numberkiisa ku sii marka wiilay saaxiibihiin oo hore isku ogeed okay marka dan faraha ka qaaday markaan faraha ka qaaday cunuga hadda duu soo weynaado aabay dadkayga aaw nafti ugu keenay marka okay waa sanadooyin kadib marka mar dhow hadda inta hore faraha ka qaado iska iloobo ilaa cunuga hadda 16 sano ka soo gaaray faraha ka qaaday okay ma baraadininba marka cunuga hadda soo weynaadana aabay aan rabaa reer kama dhalinay cidayda aaw nafti ugu keenay marka maadaama uu nafti ugu keenay markaan cod u duubay isla numberkii ka haysa marka lambarkan ka ayuu okay kii aan ka ayuu isticmaalaya cod daan u duubay fiirna uu furay uu soo celinaya okay marka dambe cunugii cod u duubay mar asoo cimro joogo ay video call ka wacay markaasuu dhahay sawirkiisu arkay marka aabihiisa madax xiran alla hooy caawada waxa 16 sano ka dambe wuxuu dhahay aabay maanta aan arko u dhahay isla markaan uu iska xiray marka sawir soo saarto hadana sawir ma live video call ka wacay okay video call markuu ka wacay telefoon ka qabtay marka markuu arkay wiilka oo kana as arkay waa gooyay marka alla hooy wuxuu dhahay aabay madax xiran arko igu dhahay
wiilkii ku celi wuu qaban waayey marka caadi ii soo wacay wuxuu dhahay marka cimraan joogay markaan cimrada ka laabta aan idin soo wacay kadib dib dambe uma arkin ilaa hadda ilaa hadda okay soo dhow adaa raba inaa su-aalo odhawaay magacaadi magacay abubakar axmed cabdullaahi axmed abubakar aabbahaga raadinaysaa haa hooyadaada la socotaa haa aabbahaga mala hadasha weligaadi markay sheegaysa maama see wax u dhaceen oo hadda cumrada jooga oo kale ramadaan lagu jiradii habeen la afuray ka bacdi ahayd waa wacay telefoon ugu qabtay markaa aniga ujigeen isku dhacay isla markuu wuu jaray waa ku celiyey wuu qaban waay laakiin nijaw waa iska dayay okay abubakar aa adiga aabbaha magaciisa maxaa lagu dhahay axmed cabdullaahi axmed aa la dhahaa hooyada waxay ku tiri qabiilkee tahay adi habargedir yaa ka taa lagu dhahay sacad yaa kasii taa lagu dhahay waxaas kale intaas kale warkamaaya waxaa tiri waxay kiyiin sacad ree helowla aabbaha guligaaga intaa koolas ka wacdeen ma sheekaysteen maya meeqa sana jirtaa adi 16 sano aa jirtaa aa see dareenta adi hooyada markaa weydiinaysay oo kale aabahee aaw oo kale maxaa sabay inaa aabbaha weydiisay qadi dunidan qofaan aabla-aan noolaan karin ma wala somaho nin walbo aabbuu u baahana sax qofka aabbalaan soo karkalexa dhibka aabbaha kalexa dareema sax saasaan ugu baahday haddana waa sii weyneenayaa dhibaato yar noo jiraan aabbo waa loo baahanaa anytime soomaho sax saasaan u weydiiyey inaan aabbaha barta qaraabaha dadka walaalihiis kulli inaan barta waxaan ku weydiinaa iskuulaa dhigta adi hadda iskula dhigdaa kalaaskee tahay grade 9 grade 9 aa 16 sana jirtaa 16 sano iskuulka maxaa kugu qoran iskuulka magaca abtigiya isticmaala magacaaga abubakar aa la dhahaa haa maxaa ku darsad yani maxaa ku raacsanaa ka abubakar shariif maxamed aa la dhahaa aabbaha ma ku darsan abtigaa ku darsad haa maxaa sababay in maxaa sabab aabumaba nala joosa ma idea aa loo baahan yahay process aa loo baahan yahay soomaho saas daraaddeed aan u isticmaalay okay aabba baahidiisa ma dareenta adi sayd waa u baada marmar qaaba wuu ka fikira dad qaar ilmaha aabbood markay arkaan waa iska dareemi karta aduu aabbalaan dhibkasi haa okay ma isweydiisay aabbahaaga muxuu kuu soo raadin lahay oo kale mar badan isweydiiyey jawaabtiisuna waa wey cunuga qof ani haddana aabiye curada anaa u aabbahaaga haa anaa curud sababtuna waa wey sababtay usoo xariniin so asxaab ma liida hadda yah asxaab iyo saaxiib asxaab badan oo lii aabbahaaga imu sheekaysa adi yah may badan oo mugu sheekay farahataa ma weydii marka wada imaanayseen hooyada waxay rabtay in aabbaha wejigaaga arko si ay kuu soo raadiyaan ehelkaaga adeerayaashaada haa adaa dhahay haa ka cabsanaa yani wejigayga waxaan jeclaa in la ii qariyo maxaa u tiri privateku fiican iyo waxaan noo social media sama waa yiri inaan si dhexgalana maro dalna iisoo gelis mogiyo ma way maada lahayn okay aabbaha hadduu ku daawanayo maxaa leedahay ab maxaa leeyahay wiilkaada aan yahay waqti aan kuu baahnayaa la jooga waqtiga maanta in adu waa ii baahane maantana baahi aabbe kuu qaba ee aabbe isoo raadaya anaa kuu baahane aa leedahay haa okay maamo isaga waa isku diiday inaad la xiriirtiin moogta number waa iska haysiin hadduu u baahan yahay wiilkiisa ama uu idinla soo xiriiri karay macnaha asaa doortay inuu idinla soo xiriiro soo maa soo hadda waxay u baahan tihiin oo kale asaga ma aan ehelkiis walaalihiis oo kale ehelkiis walaalihiis iyo qaraabadiisa ha marka si ay u fahmaan exactly wiilkan aabiis waxaa rabaa magaciisa saddexan iyo wuxuu yahay iyo markale inaad si fiican u sheegtid adi magacaaga buuxdana aad sheegtid si ay kula soo xiriiraan maybe eedooyinkiisa maybe adeerooyinkiisa aad kula soo xiriiri karo ani magacayga waa shankaroon shariif maxamed yarka aabiisna waxaa la dhaha axmed cabdulaahi axmed habar gidir waaye habar gidir sacad uu ka yahay sacad ree helowlu ka yahay okay marka asagana wuxuu ku magac dheer yahay tolkey ninkaba haa tolkey ugu magac dheer yahay okay naaneystiisa maxaa leedahay marka asaga iyo ehelkiisa weliba asaga iyo ehelkiisa waxaan leeyahay horta ani maan duruufa intii keentay shalata qof shaqaysana aan ahay maadaama aan shaqaysanayo meesha aan ku ganacsanaya dowladda naga dumisay maamahoodii xanuunsanna wixii qarashoon haysto keliya laga dhaqaa iyada igaga baxeen
marka ilmihiina waxay u baahan yihiin mustaqbal oo fiis ay u baahan yihiin hadda iskoolkan waa la furhayaa hadda uniform fiis buugto wax walba ay u baahan yihiin aabayaalkood ehelkooda fara kumaayo cunuga data aabiis la waayo adeer ama ehel uu qabo waad u tagtid maanta bal waxba ani saan iga bal idinka bal dhinaciina sanadkan fiis ka bixiyo hadda qof aad dhaysidna ma jiro okay soo ma kasin marka maanta wax intii keen waa dhib waxaan leeyahay ehelkiisa inay cunugan soo xariiriyaan hadduu aabbaha soo xariirin waaye ay ka warhaayaan aabiis axmed cabdulaahi axmed aa la dhahaa tolkaynu uu ka magac dheeriya waa habre gidir sacad ree helowle okay intuu kaala soo xiriira amaba walaalihiis iyo ehelkiisa oo kale hadday fahmaan telefoon lambarkayga waa Maraykan uu jooga soo ma dhihin Maraykan uu jooga Maraykan gobolka ka jooga mataqaana may ma aqaan okay intee kaala soo xiriira lambarkayga waa 07 20 47 40 43 shankaroon I hope in kula soo xiriiro oo wiilkiisana soo xasuusto Abubakar maxaa leedahay aabaha haddii ku maqlaay ama eedooyinkaaga ama adeeryaasha eedooyinkii abtiyaashii maxaan leeyahay waa aabahey hadda waa aragtiin saan u tuuri idinkii la soo xiriir iga warhayo hadda nin weynaan noqdin in mustaqbal lahanye aabadina dee maqlaas ila soo xiriir waqtigan kuu baahnayaa la jooga aabba iga warhay okay nambarka adiga sheegta insha allah kaala soo xiriiraya lambarkan aan sheeg wiilkan aabihiis magaciisa aad ku sheegtay axmed cabdulaahi axmed alla tolkay ku magac dheeri tolkay walaalihiis ma taqaanaa maya waxa la dhashay ma taqaanaa maya gabdho la dhashay ma taqaanaa ma aqaan niman la dhashay ma taqaanaa maya asaga bas asaga unbaa isbaratay okay I hope inuu kula soo xiriiro okay wiilkiisana la soo xiriiro waa gartay wiilkii labaad waa kaas oo aabihiis raadinaysay qofka saddexaad waa gabar soo maa gabarka saddexaad gabar waa 7 jir waa hadda ayadana 7 jir waa ayadana aabaheeda u raadinaysaa wow aabeed Zambia jooga ninka saddexaad ee gabadh u dhashay ee raadinaysa magaciisa ka bilaaw iyo asna waxaa la dhahaa Cabdinajiib Ibrahim Abshir okay jaamac maraxaan waaye reediinukiya marka Zambia uu jooga hadda okay markaan la xiriiray oon wacay oon ku dhahay gabadh had dugsiga gaartay iskuul ay gaartay waxbarasho ay u baahan tahay anigan hadda waxba gacan kuma haayo walaalow gabadha soo xiriiri wuxuu yidhi adeerkay la hadal isaga adeerkiis maxamed abshiraa la dhaha Maraykankuu joogaa marka adeerkay la hadal wala adeerkay wac adeerka haddaan waco telefoon igama qabanaayo codaan u duubaa waxba iguma jawaab iguma soo celinaayo marka isaga taa waxaan ku dhataa wax kale kaama rabay bisha $50 bisoo gabadhan dugsiga bis aan ugu bixiyo hataa ii soo dir wax kale haba siinana kadib isagan telefoon igama qabanayo okay sidaas ku heyseen asna sidaas ku barteen sidaas ku guursateen isaga caadi anigu wajaar anoo joogaan isbaranay reerku iga soo doonay xaggaan soo guursanay wajaar okay marka dambena calafkaa dhamaaday gabadh markaa dhashay kadib ama maya gabadh uurkeeda anoo leh okay goortay isku ay dambeysay inaa isla hadashay adii markaas ku kala dambeysay gabadha 5 bilood meelahaas ay jirta umar oo wajaarka soo tagay isaga 5 bilood gabadhan 7 sano jirta ma tirim 7 sano 7 sano isma maqal maya ma isla hadlinba telefoon soo anuu baa raadiyo markii telefoonka hota iska bedelo telefoonkiisa yarka eediisa ay dhashaa jira hata maandheetan telefoonka soo qaatay marka waxaan ku dhahay maandheet Nairobi aan joogaa adeerka hata igu tir Nairobi umaade intaan ugu tagaa lambar uu soo wuxuu leeyahay lambarkaas ka wac lambarka hadaan wacan ligama qabanayo adeer muxuu kugu diray adeerka cuno kaama dhalnaa ma aqaan asaga haduu shaqaystaa ma aqaan wuxuu igu diray intuu joogaa tiri Zambia joogaa asan gabadhaas ma curud way mise maya ilmo kale ka weyn u qabaa okay asna marka waxaa ka codsanaysaa in waxaan ka codsanayaa ehelkiisii dadkiisii asagaba ay la soo xiriiraan oo ilmaha haddii la dhala moogto akhris ay u baahan yihiin cunug iska kori boosho iska cuna ma aha ilmihii mustaqbal ay u baahan yihiin akhris ay u baahan yihiin ilmahan aad ka sheekeynaysa hadda haddii adiga dhimatid fahamkooda ma yaqaanaan ma aqaanaan okay maxaa leedahay marka magaciisa ka bilaab magaciisa Cabdinajiib Ibrahim Abshir la dhahaa qabiilkiis waa maraxaan reediini waay intuu joogaa tiri hadda Zambia joogaa hadda isaga ehelkiisana waa qaara ka taqaanaa mise may adeerkiis maxamed abshir la dhahaa
adeerkiisaan aqaanaa familkooda kale waxay joogaan beled xaawo. okay maxaa leedahay asagana intuuna kaala soo xiriiraa lambarkayga igala soo xiriira lambaraan qabaa 0720 47 40 43 adigoo ah anigoo ah Shankaroon Shariif Maxamed. okay Soomaaliyan dadkaas inay ila raadiyaan oo ii soo qabtaan oo sa ilmooda wax ugu taraan aan u baahanahay. okay maxaa yeele hooyo dhibaysan oo waxba gacanta ku hayn oo ilmihii gacanta ku hayso oo ilmihii wax barasho u baahan yihiin haddii ilmihii wax la barayn oo laisku celinayn duurka ay gelayaan ilmaha. okay marka intaan waan kusoo mitidee marka hadda markii meeshii ugu fiicnaad ay soo gaaraan daani gacantay hoos u dhacday oo farahan ka qaadan duurka ay gelayiin. okay marka waxaan ummadda Soomaaliyeed ku codsanaa inay dadkaas ila raadiyaan oo ay garab qabtaan. okay waxaan rajeynayaa in messagekan iyo videogan gaaro dadka araadinaysa ama dad yaqaano ay u geeyaan kadibna ay kula soo xiriiraan haddii ayaga haddee markii hore dad ku raadinay ahaayeen si caadi kula soo xiriiraan haddii markii hore kaa cararaayeen ugu yaraan dadkaas yaqaano ama ehelkooda yaqaano in nambarkaas kaala soo xiriiraan oo ismaqashiinaan rajaynaa insha allah okay maama Shakaroon maama waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dadku waxay isweydiinayaan maamadan 3 caruur ay dhashay 3 nin oo kala duwan u dhashay 3diina maxaa isku si ka dhigay ma ilmo kale aan haystaa 3 cunug lix ma haystay ilmo kale aan haystaa ilmay waa 9 cunug 4 gabdhood iyo 5 wiil waay ilmaha labada ilmaha ka sii weyn waa agoomo oo hadda ilmaha iskuulka dhamay form 4 dhamay waa joogaan ayaga taa aabadu u dhintay kuwaas aabood agoomo afarta kalena 3 kalena waa isku aabo. okay waa wada joogtiin maya waa kala tagna isagana midkaad ugu yar isagana waa 3 sano jira abiis waa kala tagna isagana 6 qof kala duwan miya 6 baan haystaa. okay adii 3 isku aabo miya 3 iyo 2 isku aabo okay waa gartay ay qofka kala tagtay marka ma soo xiriiriya hadda kuwaas kale 3daas kale aabood waa soo xiriiriya oo laba gabdhood iyo hal wiil uu ka warhaya aabood. okay kuwa agoomaan aabood uu dhintay iskuulta dhameeyeen ay joogaan ay ka wiil iyo gabro. okay waa gartay laakiin 3dan qof kale maxaa isku si ka dhigay ku kastaba adduunkiisu u galo dibna kuu soo fiirin mar waan fikiraa waxaan bini aadan golay 5daas furood ilaahay ma siimin raggan dhan maxaa isku mid ka dhiga haddana waxaan isdhaa Shankaroon waa ilaahay golay sabarkaada ku fiirnaa iska sabar ilmahaada on kuma tid ilmahaada iska korso waxba ninba haddaba kicin oo hore raadinina ciyaalkaaga iska korso kuwa laga dhintay iyo kuwan aabaa u raadinaysid adigu unbaa korso ciyaalkayga kule anaa korsada iskuulay wada dhigtaan way koreen labadooda weyn way dhameeyeen qofka ugu yar wuxuu jiraa wiilka cunug ugu yar 3 sano jiraa. okay adaa haysid ilaa anaa haysta ilmeyga dhanaa waa gartay qofkan afraad ee asna waa raadinaa dhehaysan yuu ahaa asagana qisidiisa iyo ninkan afraad oon raadinaya waa nin Majarteen Majarteen waa Cumar Maxamuud Raama haduu ka yahay Cabdirashiid Maxamuud Xuseen aldaa musungu ku magac dheeri marka asaga ninka abgaalka markaan kala tagnaa isguursanay adaa muddo 1 sano is qabnay wiilkan abiis ka hor waa ka hor kan wiilkan abiis ka hor okay marka asaga naagtiisa dibida jirtay oo dibida ku maqneed intee naagtiisa markii dibida ku maqneed okay oo fiisi wax soo xareysay bas marka flight loo soo dhijiyay marka flight loo soo dhijiyay wuxuu dhahay Shankaroon hadaan dhoofaya kulay daan dhoofanaadun baan ku dhoofi waxaad yeelaysaa aad shaqaystay balcaan shopping aan ku samaystay iraada oo xagga marka la tago dhar inta laga qaado xagga loogu baahan yahay jirto xagga lagu gadgado bal adigina saa wax ugu heshid anaa dollar inta tahay ma aqaani lacag Kenya aqaani lacag 2 milyan way qaaday waa sanadkii waxay ahayd 2 oo 9 markaas kastoo adiga waa shaqaysanaysay ani wiligay ma fariisaninba wiligay alayba ma fariisan waan iska ordaa waan iska shaqaystaa maxaa yeelay qof ilmo ku xariiraan anahay maxaa qabanaysa markaas waxaan qabanayba ma laha dhar waa wareejinaa hoteelaan karinaaye wax aan samaynayna ma laha wixii uga hormaada waa qabtaa markaasaa sheegaya yani lacagtasaa ku heshaa marka iyada jaadan gaday
okay marka waa isqabteen marka waa isqabnay haa ninka ma jirteen haa wuxuu ku yiri marka naagtiisuna waa ku ogeed inay dibadda jirto naagtiisuna dib jirto ogahay ani adiga waa ogeed laakiin iyada ima ogeyn okay bas 2 milyan shopping waa dharku waa la soo shopping waa la soo sameyn maani asaga muxuu ku yiri marka yani ninka xaaskiis dibadda jirtaa borsees waxba ku jira adaa isfahamteen waa isguursanna borseeskii u soo baxay markaas wuxuu ku yiri waa bix rabaa kadib dhar ay wax ay shopping inta ka qaadi rabaa xaggan kugu soo geeyo kale daan baxaan adaan ku baxaya lacagtaas waxaan ku samaysana waxaan ku qabsanaa isii lacagta farahan ka saaray lacagta daan farta ka saaray lacagta faraha ka saartay waxay ahayd 2 milyan 2 milyan oo Kenya money waa $20,000 baaqan dollar waxay tama kare hadii ka badnay markaas wali way ka sii badnayd ma aqaan waxay tama kare 2009kii lacag badan ay ahayd bas ninkii maalintuu dhoofay ay ugu dambeysay warkiisa ma ahe warkiisa oo dhan maalinta ay ugu dambeysay ilaa laanka lagu joogo ilaa maanta kulama soo xiriiri maya nambarka ma hayna asaas safar ahaa lambarka ma haynin maraa lambarkiisa la siiyey oo la yidhaha abiisoo dhinto u imaaday la yidhahay mid ay ilma adeeriin lambar siiyey waan wacay duugaan ku jiraa dhow igu goy lambarkan wuu bedeshay magaciisa ku celi magaciisa waxaa la dhahaa Cabdirashiid Maxamuud Xuseen Musungu ku magac dheeri waa mujarteen Cumar Maxamuud Reema hadda markuu ku ogaaday in adiga tahay duuga ku jiraa ku dhahay duugan ku jiraa dhow telefoonku igu goy kadib warkiisa intaas halaw aan dhahay yaa way shankaroon way duugan ku jiraan kugu soo celinayo dhow iga jara telefoonka bes markaas soo dhoof markaas warkiisa hadalkiisa ugu dambeysay ma ku furay waa iska fasaqay dibadda intuu ka aaday Texas soo aaday markaas Mareykan waa daasna ma xaqiijisan Mareykan aaday Mareykan waa aaday Texas lacagta way kaaga maqanta lacagta way ku maqanta meerkayga waa ku maqan wax walba ku maqan yihiin ilaa hadda ilaa laankan lagu joogo taariikh badan ku soo martay waa gartay marka waxaan leeyahay ninkaasna kulay ilmo uma haynin laakiin xoolaan leeyahay iga maqan muu cafisay ma cafinaysan oo cafina qof dhac amal ujeeyan ku cafina lacagtaada intii aheeda ka rabtaa wali intii aheedan ka raba wax kala taga ma rabo meherkaagan wali ka sii rabtaa intaan niman aad tirinay kulli wax la meher isii ma jirta ay kulli ilaaha ka cabsada wallahi billaah saddexda nin ee kala maxay abgaal habar gadir maraxaan ka maraxaanka nusiga sii oo ayaga dhan wiil u haysaa iyo mid hal gabar way ku fureen laakiin waa ay fureen ninka un baas ka fasaqday MJ ga shiis muu cafisay ayagana ilmahoodii aan ku rafaadhaya oo dhib iyo rafaad iyo inta kala dhac inta kala bood aan kula jiraa maxaan cafiyaa waan bale ilmahooda soo raadsadeena wow waxaa tiri ninkan lacagta ku leedahay lacagta kaala dhuntay ay isqabteen magaciisa maxaa tiri Cabdirashiid Maxamuud Xuseen la dhahaa maxaa leedahay hadduu ku maqlaayo ama dad yaqaanaan hadduu i maqlaayo magac dheeraa tiri Musungu ku magac dheeri maxaa leedahay asaga hadduu ku maqlaayo hadduu i maqlaayo waxaan leeyahay walaalo qof waa Shankaroon Shariif Maxamed lambarkaygana waa 0720 47 40 43 inta adduunka lagu noolyahay baa la isla oo la raadina mar haddii dhinta la isma helayo walaalo waxaan leeyahay fadlan lambarkayga waa kaasaa ila soo xiriir ama xoolahayga ii soo dir waa gartay dhima leh maam Shankaroon aad u mahadsan tahay message-kaaga fariintaada way caddahay I hope dadka inay ku maqlaan inay kula soo xiriiraan muhiimadda ugu weyn waxay ahayd 4 qof raadinaysay 3 ka mid ah waxaa tiri caruura u haysaa magacyadooda waa sheegtay nambarkaaga waa sheegtay qabiiladooda waa sheegtay waxaan rajeynayaa in ilmahooda soo xiriiriyaan ee aadna kula soo xiriiraan ilmahooda say isku maqlaan oo kale haddii ayaga nooleena way noolyihiin dhimashooda ma maqlin way noolyihiin inay kula soo xiriiraan rajeynaa insha allah wax kaloo ku darsanaysa ma jiraan oo maybe aanay ku weydiinin oo adiga muhiim u aragtid maya dhammaan ummad Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inay nimankan ila soo raadiyaan
oo ila garab qabtaan si nimankan ilmahooda waxay ugu tar lahaayeen oo wax ugu heli lahaa. adoo maama soo koobaysid dadkaa sii xasuusinaynaa inta dada raadinaysid. intaan raadinaya horta 4 qof waaye, 3 ilmaan u hayaa, 2 wiil iyo 1 gabar. kan ugu horeeya Cabdulaahi Maxamuud Rooble Candhu Firaal dhahaa, waa nin abgaal oo waceysle oo macallin iblaawe ah joogo oo jooga Mareykanka. gobolka ka jooga ma garanayo. waxa u haysaa waxaan u hayaa cunug 18 jir ah. waxaan rabaa ehelkiisa iyo dadkiisa maca asaga inay cunugiisa soo raadiyaan. anoo waa gartay. Shankaroon Shariif Maxamed ah. Mm. tan labaad waa cunugan haddii ag joogo Abubakar la dhahaa, aabiis Axmed Cabdulaahi Axmed aa raadinaysaa. aan raadinayaa. waa nin habar gidir ah oo sacad oo reer Hilowle ah, Mareykanku jooga asagana. waxaan ka codsanayaa asaga hadduu i maqlaayo ehelkiisa iyo qaraabadiisa dhammaan inay soo raadiyaan cunugan. maxaa yeele hadda wuu u baahan yahay kulligood xilliga aboodyaalkood u baahan yihiin ay taagan yihiin. wiil waxa u haysaa jiro waa wiil inta wiil 16 sano jiraan u hayaa. okay. kan kaloo 3aad Najiib Ibraahim Abshir, waa nin maraxaan ah oo reer diine ah, Zambia jooga asagana. waxaan leeyahay ehelkiisa iyo qaraabadiisa inay soo raadiyaan gabaraan u hayaa oo waxbarasho iyo wax walba ay ka dhiibaan oo u baahanahay. ay jirto gabadha 7 sano ay jirtaa. anigoo ah Shankaroon Shariif Maxamed aa raadinaysid. aan raadinaya. okay. 3daas qof dad aa ilmo u heysid oo ilmo u haya u raadinaysid. qofka afraad Cabdirashiid Maxamuud Xuseen oo Musungu ku magac dheer, majeerteen waay, Cumar Maxamuud Raamahadu ka yahay. ninka asagana xoolaa igaga maqan, lacag 2 milyan igaga maqan. waan isqabi jirnay, waan kala tagnay. asagana waxaa leedahay fadlan lambarkayga waa 0720 47 40 43 inuu isoo raadiyo. soomaalina waxaa leedahay waxaan leeyahay dadkaas haliila garab qabta haliila raadiyo. okay. intaasaan ka codsanayaa Soomaali Maxamed.